waxaan maanta nimaday wasaaradda qorsheynta oo runtii aan u nimaday xaaladda dalka ka jirto oo runtii ka sii darayso taasoo runtii aan ku faraxsanahay in wasiirku nagu soo dhaweeyay macali wasiir dabcan waxa aan halkan u nimaday waxay ahayd in aan kula wadaagno xogta dalka iyo xaaladda ay marayso abaaraha oo runtii aad iyo aad runtii uga sii daraayo xilliga hadda aan ku jirnahay waa abaar dabcan ilaa iyo 5 bilood soo socotana roobka guga xilliga la filayo 5 bilood ilaa 6 bilood runtii ay ilaahay waa keeni karaa laakiin runtii waa haysanta dabcan arrintaas runtii aad iyo aad cabsi noo gelisay aan kugu nimaday waana ku faraxsanahay inaad runtii adigana aad nala qaadatay dabcan waxaan u baahanaa in dawladda guud ahaan wasaaradda qorsheynta iyadoo hogaaminayso xafiiska wasaaruhuna doo amarka soo baxshay in guud ahaan leesu badnaado oo runtii arrimahaas internationalka iyo partnerska iyo guud ahaanna aan runtii iska kaashano sidii aan u miday lahayn xuduudda iyo wixii la heli karo dabcan waxa la haysto way yar yihiin laakiin haddii la miday waxa laga yaabaa inay meel looga soo baxaan marka runtii aad iyo aad u mahadsantahay soo dhaweyntaada iyo runtii waana runtii ku faraxsana waana kula shaqayn doonaa haddii aad u mahadsantahay